asalaamu calaykum waxaad ku soo dhowaataa koorsada listening-ka ee level 3 maanta waxaan ka hadli doonnaa sida ay ku kala duwan yihiin lahjada Britishka iyo Maraykanka marka ay ku dhawaaqayaan xarafka T. mid ka mid ah farqiyada ugu caansan ee u dhaxeeya lahjada Ingiriisiga ee Britishka iyo tan Maraykanka waa sida ay ugu kala dhawaaqaan xarafka T. marka xarafka T uu ku bilaado ereyga, labada lahjadoodba hadday ahaato midda Britishka ama Americanka waxay ugu dhawaaqaan sida caadiga ah. tusaale, table, table, time, time, take, take, teacher, teacher. So marka uu T ereyga ku bilaabmo ma jiro farqi weyn oo u dhaxeeya labada lahjadood. farqiga dhabta ah wuxuu yimaadaa marka xarafka T uu dhexda ereyga kaga jiro, gaar ahaan kadib marka T ay timaado shaqal vowel kadib. wuxuu noqon karaa mid ka mid ah saddexdan qodob. haddii aan eegno American accent, marka xarafka T uu yimaado kadib shaqal vowel, badanaa dadka ku hadla lahjada Maraykanka ah waxay ugu dhawaaqaan dhawaaq u eg D jilicsan, waxaana loo yaqaanaa flat T. ma aha T buuxda, mana aha D buuxda, balse waa mid u dhaxeeya xarafka ta iyo da. waa dhawaaq degdeg ah oo carabka si tartiib ah u taabanaya saqafka afka. tusaalooyin haddaan ka bixino: water, better, computer, pretty. water, better, computer, pretty. qodobka labaad aan u imaano, dadka British accentiga ku hadlo waxay badanaa ugu dhawaaqaan xarafka T sida cad ay tahay ama sida ay u muuqato. tusaalooyinka aan isla eegno: water, better, computer, pretty. water, better, computer, pretty. waxaan u gudbaynaa qodobka saddexaad. gobolo ka mid ah UK sida London iyo agagaarkeeda, Cockney, Estuary, dadka qaar waxay ka tagaan dhawaaqa T waxayna u beddelaan glottal stop ama glottal stop. glottal stop waa marka aad si degdeg ah u xirtid cunaha neefmareenka, joojin gaaban oo cod ah sida o halkii aad ka odhan lahayd xarafka T. o codadkaas ayaa booska gelinaysa. tusaale, lahjada Cockney ee London looga hadlo: water, better, British. water, better, British. mararka qaarkood lahjada Maraykanku sidoo kale waxay isticmaalaan glottal stop or glottal T, laakiin maanta aan diiradda saarno dhawaaqa T flap maadaama uu yahay farqiga ugu weyn ee u dhaxeeya lahjada Britishka iyo Americanka. haddii aad rabto inaad barato sida Maraykanka ugu dhawaaqaan glottal T, dib ugu noqo koriska phonetics.